بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegeyno xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo arrimo kale oo caalamka ah qodobadan caawa barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah Burkina Faso iyo hogaamiyaheeda Ibrahim Traore waxa ay ka badbaadeen afgembi military muxuu yahay xariga 6 muwaadiniin ee u dhashay wadanka dariskiisa ah ee Ivory Coast maxayse tahay sababta xarigaasi iyadoo la og yahay in dhowr jeer dalalkani ay kala qabsadeen muwaadiniin badankood xadka ku sugnaa arrintani maxay u dhimi kartaa xiriirkooda oo horeyba u xumaa dhammaan macluumaad ku saabsan arrimahan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa sidoo kale barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa caawa qadar ma aqbali doontaa raaligelinta Israa'iil ee la xiriirta falkii weerarka gardarada ahaa ee Dooxa lagu beegsaday 9kii bishan Sebtembar maxayse tahay shuruudaha ay ku xirtay inay aqbasho raaligelinta sidoo kale maxaa ka soo baxay kulankii qadka taleefanka ku dhex maray Netanyahu ra'iisul wasaaraha Qatar iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump faahfaahin ayaan idin haynaa iyana sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegeynaa caawa hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha oo si weyn u cambaareysay baaqa iyo mowqifka maamulka Trump ee ku saabsan dib u eegis lagu sameeyo nidaamka caalamiga ah ee magangalyo doonka Mareykanka oo dhawaanahanba musaafiris uu ka socday wuxuu ka damacsan yahay baaqiisan haatan muxuuse ku tilmaamtay hay-adda arrintan macluumaad ku aadan arrintan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa dhammaan arrimahan oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa daqiiqadaha barnaamijka ee wanaagsan si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ugu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan amaba aadan hore ugu xirnayn hadda ku soo biir waanad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka barnaamijka aynu gudagalna ee hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa waxay cambaareysay baaqa iyo mowqifka maamulka Trump ee ku saabsan dib u eegis lagu sameeyo nidaamka caalamiga ah ee magangalyo doonka hay-addu waxay ka digtay cawaaqib halis ah oo ka dhalan karta baaqa madaxweynaha Mareykanka ee ku saabsan dib u habeyn lagu sameeyo nidaamkan iyadoona sheegtay in talooyinkaasi ay wiiqi doonaan mabda'a asaasiga ah ee ilaalinta dadka magangalyo doonka ah islamarkaana ay khatar gelinayaan noloshooda iyo xorriyadooda arrintan ayaa timid xilli Washington ay qabatay shir dhinaca socday kale fadhiga guud ee qaramada midoobay ee New York halkaasi oo saraakiil Mareykan ah ay kaga baaqeen in dib si guud loogu eego xeerarka caalamiga ah ee magangalyo doonka iyadoo lagu saleynayo ilaa 5 qodob kuwa ugu muhiimsan ay yihiin xaqa dowladuhu u leeyihiin inay si buuxda u maamulaan xuduudahooda in qaxootinimada loo arko mid ku meel gaar ah oo aan la joogtin in la diido faragelinta caalamiga ah ee ku saabsan go'aanada dib u soo celinta magangalyo doonka iyo baahida dowladuhu ay u qabaan in si degdeg ah loo aqbalo muwaadiniinta dalkooda laga musaafirinayo hay-adda Amnesty International waxay sheegtay in talooyinkani gebi ahaanba la iska indhatirayaan mabda'a aan dib loogu soo celin oo mamnuucaya in dowladda lagu qasbo inay qofna dib u soo celin dal halis gelinayo xadgudubyo culusna ay ka jiraan oo qofkaasi xuquuqdiisa ka dhan ah shuruudda ah in magangalyo doonku ay ku ekaadaan dalkii ugu horreeyay ay yimaadeen waxa ay si weyn u xadidi lahayd xaqa magangalyo doonka iyadoo culeysyo dheeraad ah saaraysa dalalka saboolka ah ee martigeliya inta badan qaxootiga caalamka halka dalalka taajiriinta ahna ay u leexanayaan mas-uuliyadooda bini'aadantinimo hay-adda Amnesty International waxay sheegtay in intooda badan qaxootiga ay ku qasbanaadeen inay ku nagaadaan dalalka dariska ah balse halkaasi ay ku wajahayaan khataro waaweyn sida in dib loo soo celiyo takoorka ama sharciyo kale taasi oo ku qasbaysa inay safarkooda sii wataan iyagoo oo raadinaya badbaado dhab ah hay-addu waxay xustay in sheegashada Mareykanka ee ku saabsan qaxootiga oo dooranaya dalalka magangalyo doonka ah aysan ka turjumaynin xaqiiqada iyadoona tirakoobka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR uu muujinayo in ilaa 73% qaxootiga ay ku nool yihiin dalal dakhligooda uu hooseeyo ama heer dhexaad uu yahay hay-addu waxay sidoo kale sharaxday in xaaladda ilaalinta qaxootigu aysan ahayn mid weligeed ah balse ay ku xiran tahay sii jiritaanka khatarta dalka ee asalkooda ay kasoo jeedaan dadkaasi dowladuhu waxay si joogto ah u hubin karaan isbeddelka duruufaha iyagoo oo weli hubinaya nidaamyo cadaalad ah oo waxtar leh oo loogu talagalay magangalyo doonka
waxaa intaasi dheer qaxootiga ku nool Mareykanka waxa ay door muuqda ku yeesheen dhaqaalaha iyo bulshada sida ay muujinayaan tirooyin rasmi ah oo dowladeed. hay-addu waxay xustay in hindisaha Mareykanka uu astaan u yahay kororka siyaasadaha iyo dalalka taajiriinta ahi ee in sanadihii lasoo dhaafay ay ku doonayeen inay kaga baxsadaan waajibaadkooda qaxootiga iyagoona ku celinaya ama yareynaya gargaarka bini'aadantinimo taasi oo ka hor imaaneysa ruuxda heshiiska qaxootiga ee sanadii 1951 iyo baraatokoolkiisii 1967 iyo sidoo kale sharciga caalamiga ah ee mamnuucaya in dadka dib loogu celiyo meelaha khatartu ay weli ka jirto. xaqa dowladuhu u leeyihiin inay xudgudahooda maamulaan ma aha mid aan xadidnayn balse waa in lagu dhaqmaa iyadoo oo lagu darayo waajibaadka xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ee Amnesty kusoo gabagabaysay warbixinteeda iyadoo ku baaqday in maamulka Mareykanka iyo dalalka ay qusayso arrintan ay ixtiraamaan mabda asaasiga ah ee ilaalinta dadka kasoo cararaya cadaadiska iyo musiibooyinka isla markaana ay bixiyaan xalal cadaalad ah oo waafaqsan heerarka qaramada midoobay iyo cadaaladda caalamiga ah. waa tahay markana dalalka Ivory Coast iyo Burkina Faso ay ka dhex taagan tahay xiisad ku aadan xuduudaha la isaga gudbay iyadoo sidoo kalena aysan jirin xariiq caalami ah oo kala xadeynaysa dalalkan. hogaamiyaha golaha military ee Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ayaa xaqiijiyay tallaabo ku aadan xiritaanka 6 qof oo u dhashay dalka Ivory Coast dhamaadkii bishii Agoosto isagoo ku eedeeyay inay si sharci darro ah xadka uga soo tallaabeen kuna howlanayeen falal uu ku tilmaamay basaasnimo. arrintan oo sida la sheegay sii horinaysa xiisada horey uga sii dhaxaysay dalalka Ivory Coast iyo Burkina Faso. Traoré oo wareysi siiyay telefishinka dowladda ayaa sheegay in ciidamada taageerada militarigu ay xireen 60 shaqaale oo ka tirsan maamulka dalkaasi ee kaalmada qaxootiga iyo muwaadiniinta u dhashay iyo muwaadiniinta aan dhalashada lahayn kadib markii xadka ay kasoo gudbeen oo ay soo galeen gudaha dalkiisa Burkina Faso. qof kasta oo xadka kasoo gudba kana howlgala ee howlaha noocani oo kala ah waa basaas waana iska dabiici in la xiro oo la wareysto ayuu yiri. warbaahinta Ivory Coast ayaa horey ugu eedeysay in ciidamada Burkina Faso ay afduubteen shaqaalaha intii ay ku guda jireen howlo lagu ogaanayo xaaladda qaxootiga meel ku dhow xadka waqooyi bari isla markaana ay geeyeen caasimadooda Ouagadougou. hase yeeshee Traoré waxa uu xusay in tani aysan ahayn markii ugu horeysay muwaadiniin u dhashay Ivory Coast laga qabto dalkiisa isagoona tilmaamay in xubno ka tirsan ilaalada Ivory Coast horey loo xiray bishii Sebtembar ee sanadkii 2023 iyo bishii Juun ee sanadkan 2025 balse markii dambe dadkaasi la sii daayay. Burkina Faso iyo dalka dariskeeda Ivory Coast waxay wadaagaan xuduud qiyaastii 600 oo kiiloomitir ah taasi oo lagu sifeeyo mid mugdi uu ku jiro oo si sax ah aan loo calaamadeyn taasi oo ka dhigaysa goob marar badan lagu qabto dadka la isku haysto. Ouagadougou waxay ku eedeysay dariskeeda koonfureed inuu isku dayayo inuu wiiqo halka dalkan Côte d'Ivoire lagu ninaasay Ivory Coast ay diidayo eedeymahaasi iyadoona uu tusaale u soo qaatay xariga muwaadiniinta u dhashay dalkiisa ee lagu qabtay gudaha Burkina Faso. xiisada labada dal ayaa sidoo kale cirka isku sii shareertay kadib geeridii bishii Luulyo ee lasoo dhaafay ku timid muwaadinkii reer Burkina Faso ee Alain Christophe Traoré oo loo yaqaanay Alino Faso kaasi oo ku dhintay xabsiga iskuulka jandarma ee Abidjan ku yaala isagoona lagu eedeeyay basaasnimo uu xog ugu gudbinayay dal kale. geeridiisuna waxa ay kicisay carag ka dhalatay gudaha Burkina Faso. waa xagaag daawadayaal waxay nagu soo foolay sheekada ku aadan Qatar ma aqbali doontaa in Israa'iil ka cafiso weerarkii lagu sheegay xadgudub ka dhan ah madax banaanida Qatar ee horaantii bishan lagu beegsaday magaalada caasimadda ah ee Doha. balse intaynu u gelin sheekadaasi aynu ku hakano qadar xayeysiin kaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo weliba Telegram-ka. warbixino qoraal faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan oo aad ka dheehan kartaan barta aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnow HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. markan aynu sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka u jaleecno. Qatar ma aqbali doontaa raaligelinta Israa'iil ee la xiriirta falkii weerarka gardarrada ahaa ee Doha lagu beegsaday 9kii bishan Sebtembar.
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar Majid Al Ansari ayaa sheegay in cafiska Israa'iil ee looga cafinayo gardarrada weerarkii lagu qaaday Dooxa uu yahay inuu qirto dembiga ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isla markaana la helo damaanad ah in aan mustaqbalka dib loogu noqon doonin falcaynkaasi oo kala ah. waraysi uu siiyey wargeyska Talyaaniga ah ee Corriere della Sera ayaa Al Ansari waxa uu ku yiri cafiska qatar weli waa tallaabadii ugu horeysay waxa ugu muhiimsan waa ballanqaadyada amni ay bixiyeen Mareykanka iyo Israa'iil oo ah inaanay mar dambe weerar noocan oo kala ah ku soo qaadin dalkeena. Cafiska inkastoo uu yahay mid astaan ah waa qirashada dembiga ee Netanyahu, sidaas darteedna waa qayb ka mid ah ballanqaadka ah in mar dambe aan la weerari doonin isla markaana waa mid shardi noo ah annaga. Al Ansari waxa uu sheegay in kadib markii xaaladda la xaliyay qatar ay dib u bilowday codsiga Mareykanka awgiis wadaxaajoodadii ay dhexdhexaadinaysay. Midnimadii xalay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa kulan la yeeshay xafiiska siyaasadda ee Xamaas iyo madaxa sirdoonka ee Masar iyagoo u bandhigay qorshaha nabadda ee Mareykanku uu soo jeediyay. Al Ansari waxa uu ku tilmaamay qorshaha madaxweyne Donald Trump mid macquul ah, isagoona xusay in uu soo bandhigayo aragti xal kaba dambeys ah kuna saabsan dagaalka Gaza. Aqalka cad waxa uu shaaciyay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu muujiyay in uu ka xun yahay xadgudubka madaxbannaanida ee qatar ee ay sameeyeen, isagoo carabka ku adkeeyay in weerar sidani oo kala ah aanu mar dambe dhici doonin. wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa habeennimadii xalay sheegtay in Israa'iil ay raaligelin ka bixisay weerarkii ay ku soo qaaday dalka qatar 9kii bishan Sebtembar, taasi oo ku timid wicitaan dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ra'iisul wasaaraha qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Thani iyo dhigiisa Israa'iil Benjamin Netanyahu. bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa lagu xusay in ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee qatar uu xaqiijiyay in dalka qatar gabi ahaanba uu si adag uga soo horjeedo ku xadgudubka madaxbannaanidiisa xaalad kasta oo ay noqoto, isagoo ku adkaystay in ilaalinta muwaadiniinta iyo dadka ku nool dalka qatarba ay tahay mudnaanta koowaad. waanu arki doonaa haddii qatar ay ka cafin doonto oo ay diyaar u tahay inay iska cafiso qaladkii Israa'iil ay ku kacday iyo haddii kaleba. daawadayaal guud ahaan waxaa caawa intaasi ku eg barnaamijkii gaarka ah oo aynu ku eegaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo arrimo kale oo caalamka ah. si aad u hesho wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad